قوب والباطمات قدومية كريسو كاران إني كريسو أنكم كي قاطي وكسي suuq cusub oo ka kooban 93 dukaan kuwaas oo loogu talagalay dukaanada hilibka qudaarta qayb ka mid ah tahay qayb tababar ah oo shaqo abuur ah aan ugu talagalnay in gabdhaha Soomaaliyeed ee degan degmada Kaaraan lagu tababaro waxa jira suuqyada hore aan loo dhisay oo ay ka mid tahay nagaad iyo suuqa Ansaloti Xamar Jajab waxaan rabnaa in suuqan ahaado suuq cusub oo casri ah markii aan dhisno suuqana waxaan doonaynaa oo kale in nadaafadda laga shaqeeyo haddii aan suuq weyn haddii la sameeyo laakiin hortiisa ay qashin haddii yaalaan wax shaqeeyaan marka nadaafadda waxay keentaa caafimaadka hal u dadaalo xoog hala saaro laakiin gobolku waxaa ka go'an mar walba dadka inay baahiyaha ay qabaan lagu geeyo gurigooda tanaan ka mid ajuun maanta Kaaraan birin waxaa aad doonaa meelo kale ay baahiyaha ay ka jiraan laakiin nadaafadda xoog hala saaro waxa kale oo reer Kaaraan oo aad xoog saartaan amniga nagala shaqeeya waxa loo baahan yahay magaalada Xamar in ahaato magaalo caasimadda waddanka weeye waxa weeyaan imaraadda Soomaaliya in amni ahaato macnaha ayaa loo baahan yahay ilmaha Soomaaliyeed Xamar ku nool waxa xaq u leeyihiin intay iskool aadaan ayagoo amni ah haddana xaafadoodii inay yimaadaan waxa la rabaa masaajidka markuu la aado lagu cibaadaysto inaan walba macnaha laga qabin oo qofka markuu baxo soo dukado haddana xaafadiisa waa ammaana inuu yimaado marka amniga waxaa ka shaqo kara dadka degan magaalada marka amniga laga shaqeeyo dadka qaska wada aan badnayn hala sheego yaa la qaranin sababtoo ah aduu ku dilayaan ilmahaadu macnaha ayuu dilayaa aabbahabuu dilayaa ninkaaduu dilayaa marka amniga waa muhiim dadka Xamar degan waxay xaq u leeyihiin inay ku noolaadaan caasimadaha kale adduunka dadka ku nool amniga iyo bilicda ay qabaan